munaasabadan lagu soo bandhigay cilmi baaris ay sameeyeen arday dhigata jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho taasi oo ahayd dhisidda iyo horumarinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya labada arday ee sameysay cilmi baaristan ayaa waxa ay kala ahaayeen Mustafa Ali Sheikh iyo sidoo kale Abubakar Sheikh Ahmed waxaana ugu horeen munaasabada ay ku soo bandhigeen muddadii ay ku qaadatay hawshan waxaan u doorbidnay mawduucan dib u dhiska iyo horumarinta ciidanka qalabka sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahmiyadda ballaaran ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed jiritaanka Soomaalinimo dad iyo dal wada noolaada lama heli karo haddaysan lahayn ciidan xooggan asluub leh anshixiisi iyo asluubtiisa ay wanaagsan tahay waxaana ku ogaanay cilmi baaristan in aanay sahlanayn in dib u dhis iyo horumarinba lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sababaha soo socda dartood lambar 1 in aysan jirin aragti siyaasadeed oo ka tarjumaysa isu keenista iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lambar 2 soo xulitaanka ciidamada oo aan ahayn qaab ay bulshada ku wada qanacsan tahay lambar 3 beesha caalamka oo aan si buuxda uga soo bixin kaalinta kaga aadan xagga dhaqaalaha iyo tababarada ee dib u dhiska iyo horumarinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lambar 4 ciidamada oo u baahan dib u habeen cadaalad ku dhisan iyo tayeenta qaab waliba lambar 5 in aan loo qoondeyn dib u dhiska ciidamada kharash miisaaniyadeed oo tiro iyo howlgalba ku filan ardaydii ku sugneed munaasabada ayaa su'aalo kala duwan weydiinayay labada arday ee cilmi baaris ku sameeyay horumarinta iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray gudoomiyaha jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho injineer Samawade Maxamed Cali Daahir jeedkeena waxa waaye waxyaabaha ummadda saameynta ku leh inaan ka fargareeno aan wax iska dhahno aamusnaan ma soconaysa laakiin wax in la iska dhaho la munaaqasheeyo fikrado cusub lagu soo biiriyo qaab cusub lagu soo daro marka Mustafa iyo Abuukarna shaqo culus ay soo qabteen oo ahayd diyaarinta mawduucan waa garanaya access-ka inuu aad u dhib badnaa meelaha qaar anaga casimaad xoogaa wareeran ka marnay marka waa qiyaasi karnaa in wareerka meeshaas jiro laakiin shaqo fiican ay qabteen mustaqbalkana waxaan rabnaa inaan xoogaa aan sii gelino Hani Xaaji Maxamed Universal TV Muqdisho.